munaasabadana oo ahayd mid ay ku qalin jabinayeen arday wax ka baratay iskuulka Sinaan ee magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan kuliyadda caafimaadka ayna soo qaban qaabiyeen qaar kamid ah ardayda waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka Galmudug maamulka iskuulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimadda Galmudug xafladda qalin jabinta waxa ugu horeyn daafuray maamulaha iskuulka waxa uuna u mahad celiyay asaasaha iskuulka Sinaan iyo ardaydii soo qaban qaabisay xafladdan gudoomiyaha dhalinyarada caasimadda Axmed Xasan دكتورك دكتور ياسين مامورها اسكولك وبري دنجت iyo maamulaha iskuulka amaamuun Mr. Asad iyo ka soo qayb galayaasha dhamaan waxaan u hambalyeynaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa Xuseen Shimxa Ardoofe oo in badan aan shaqadan anagu iga sii sukeeyay waqti badan ku baxshay in halkaan dadkan soo gaaraan sabab u ahaa mar labaad oo mahad celinaa waxaan ardada kula dardaarmayaa waqtigii ay soo gaareen inaysan iyo waxbarashadii la baray inaysan dayacmin Axmed Xasan oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada caasimadda Galmudug ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay ka soo qayb galka qalin jabintan farxad weyn ay tahay galabta halkaan aan uga soo qayb galo arday ka qalin jabinaysa iskuulka Sinaan Primary and Secondary School gaar ahaan qaybta caafimaadka oo sida hore looga dhawaajiyaba muddo sanad ah ay soo baranayeen caafimaadkaas ama duruusta caafimaadka ay soo dhiganayeen galabtana halkaan lagu abaal marinayo waxay sanadka soo wadeen laguna guddoonsiinayo insha Allah shahaadadii ay mutaysteen waxaan ugu mahad celinayaa marka hore ardaydii runtii kaalinta weyn ka qaadatay juhdiga dheer ku bixisay dadaalka badan ku bixisay ayaan u mahad celinayaa ugu dambeyn waxa soo xiray xafladda gudoomiyaha waxbarashada Galmudug Rijaal waxa uuna dhiirigelin u jeediyay ardayda ka qalin jabisay iskuulka isagoona sheegay inay la garab taagan yihiin taageero waxaan ku dhiirigelinayaa ardada iyo macallimiinta iyo iskuulka siiba ardada maanta shahaadada qaadanaysa horta waxaad ogaataan furihii koobaad baad haysataan 10 furaa jira marka furihii koobaad baad haysataan 9 furana way idin dhibantaa inaad guusha gaadhaan baa marka loo baahan yahay insha Allah dhameystirataan caafimaadkuna qofka at least asaga filimadiisa iyo caruurtiisa iyo qoyskiisa wuxuu kaga maarmaa inuu qof yiraahdo kaalay qofkaan ama filimba igu xir ama kaalay in kaliya idur aniga af Soomaaliga xataa si fiican aanu aqoon wixii uu horeeyay oo wax ka bilaabay wuxuu barnaamijka caafimaadka buuxa af Soomaaliga xataa si fiican aanu aqoon ilaa iyo hadda caruurtayda iyo reerkayga iyo aniga iyo marka hadda aan rabno inaan dawo soo qaato hadii cidna kaga baahan hebel oo kale iyo talaal iyo hebel oo kale filimba igu xir waa kaga kaaftoomaysa waa waxa ugu yar ee caafimaadka laga dhaxlo weeyo Cabdi Fataax Yuusuf Maxamuud Cabdi Fataax Fiyaad wararka telefishinka Saan magaalada Dhuusamareeb